رسول لأن النبي القرآن كان قبناي ما دام النبي أوها النبي مثال وحوان وإكزام بلر ومد دورن بن لرب النبي إنه كود ضيته حقه جامنتك قد ضيته حق نحريستك قد ضيته حق عدالتك قد ضيته قبل ريم مدينة الشريفة ضرر وين كدلتي أيا وحبي حضي مركز الليلي أيا أوشيء النبي وجي إرجين قبلنا يان قعنت اللجرينه مركز الصحابة يرادين أسامة بن زيد بن النبي والصحابة وجو جعليه هو وحل جايبه أسامة إرجين تيسينه النبي وحكم مغلو لأن مركز أسامة بن زيد بالصحابة ودرن أسامة النبي أوشيء عليه الصلاة والسلام نبي وحكول أتشفعوا يا أسامة ما حد حدود إلهي كمدا ديجي إرجسو إرجد لبتي بكيدي ويم الله بالإلهي بكل دارته لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فاطمة وإن محمد حدي وحد لهيد أيده والله قعنتك أقول لها برسولك يري عدالة سنان نحريس دلقاد نندرد بادية قضال انتو كجي مدقوا النبي كوجيدي مركز النبي عنده عصادين ماشيين علامات أيا كوهردي مركز ولي بيدي حولهن هذا هيسد أذقنا مليهد أبهانا ملهين إلهي بكودي بين نصيبه كيدي مركز النبي قصان تبي بوس كقصلي يحب بقولها لا دوجي لسيبه يدي إمام هذا هو الإمام إمام كأنه وإسقى سو ما هندي سو سلامة صلاة كلية ما وحلا قد دينا يوجو نلاش شردن بنبي قال قد دينا يا دولة دور دسنة وحكود دسي عدالة بكود دسي يكلا الضمبين يسمغل يسكن حريص شو عمر بن الخطاب خلا أبي بكر الصديق الله رالك النقدة مال أنت ثلاثة أمد لودي بأبي بكر جوي سينتو قاتب ومقالة أو سوق عيوس كتجي وحوها نم باقاشلا ودرك بدأ عدو سوق مقالة مدينة كوي مجرى أبي بكر كان عصدوها عمر بن الخطاب كذبها الله أبو بكر انتهى سعتها وحول واحد نص أبو يده هاي رير كي يجيب المصاريف تودي سوري ده يبودي ما هلا اللي سيد بوكيدي وايو أمد النبي محمد سيده أردن تهاي حل كي يجيب ماذا حلقو صاري بوكيدي رير كي جاي يبيلن أشورين إن أنا كأشورين إن هذا مسجد يكون نقطة مسجد كفريسة بودي هذا أحد الزمن كان مساجد الزمن كاس وحي هيد ماشي أمد اللوجات تليوها مسجد وفود مركي اعتماد مقالة مدينة مسجد كوي من النبي أبو بكر يا عمر مرتي هذا اعتماد المسجد قال له قابل أجي ده الدين هذه الله بري مسجد قال له براجي وماشى جامعة أصحاب محمد أيوة كسر برتين ومسجد هل كافر يسوع أمد أوتلي بوكي ويشوريين هل شوريه وحي أصوص سمي قندير أي دادين maalintii reerkiisa in wixii ku filan baytul maalka laga siiyo laba sano iyo dhowr bilood buu Abu Bakar talada ummadda u hayay soo maahayn maalintuu geeriyooday Abu Bakar godka lagu riday inankiisa Cabdiraxmaan ibn Abi Bakar oo dhaqaale sida ayaa yimid baytul maalkiiba lacagtii ku soo celiyay Cabdiraxmaan bin Awf ayaa ku yiri waa maxay lacagtan aad wada halkeed ka keentay wuxuu aabba igula dardaarmo igu yiri Allah u naxariisto Allah raali ka noqde wax hantiya hadaan dhinta maanta dhulkaas aan leeyahay dhulka gad oo iibi labadii sano iyo muddadii talada ummadda aan hayay baytul maalka muslimiinta intaasan masaariif ka qabaaye igaga celiyay buuri qiyaamaha inaan waxba la igu yeelan aniga innaka muslimiinteena zamankan waxa laga yaabaa gaalay ku sheegan horumar 200 oo sano oo hadda 200 oo sano oo isticmaalkan adduunka Ingiriisku qaybiyay taariikhdii 200 ee sano dhalinyaradena lagu qufulo iskuulada loogu dhigaa 200 oo sano ka hor ummadii talinaysay caalamka hogaaminaysay taariikhdeedina maanta waa la inaga masaxay 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda Abu Bakar uu hayay wixii masaariif baytul maalka uu ka qabay uu soo celiyay laana umay qabin iyagu mas'uuliyadda inay dhaqaale ku qaataan mas'uuliyadda waxay u arkayeen xilligii ummadda nabiga loo adeegay ummadda loo khidmeynayay lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyagu waxay uga baxsanayeen inay adeeg tahay bay fahmeen iyagu halka inaguna maanta mas'uuliyadda aan lacag ku doonayna lacag ma meel kaste maaha waddankan kaliya maaha caalamul islaami oo dhan maanta noocaas adeeg bay u arkeen ummadda u adeegayaan lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyagu zamankan dad badan oo muslimiin ah waxay arkaan xilka xilligii aqal la dhisan lahaa ee ubadka wax loo qaban lahaa inay tahay lidaalika way ku ordaan bal way iibsanayaan ba kuraasadii
si loo doorto lacag u bixinaya lacagta u bixinaya muxuu ka jeedaa hadhow tolo lacag badan ha ka qabatid buu leeyahay meesha aqal ha u dhistid ciyaalkaaga Abdurrahman bin Auf Allah raalli ka noqday lacagtii iyo wiilkii Abdurrahman in Abi Bakar intuu soo qaaday ayuu Umar u keenay bal dhageyso Umar oo ninkan wuxuu leeyahay markii arintii Umar loo sheegay Umar qabriga Abu Bakar buu dul tagay wuxuu yidhi Abu Bakar waadna daalisay buu keenay waadna daalisay aniga iska daayay madaxda ka dambayso oo dhan siday u leeyihiin Abu Bakar ku dayda ayadna daalisay buu keenay Abu Bakar مثل عمر بن الخطاب مدح ديس وحو كل الدردار ميي صدح شيء هبدلين ابو اورنجري صدح شيء اقل الذين البابدود يردها فرناتو بركه النبي محمد ونغا دنتينا هبدلنا سفردا cuntada ku cunaysaan ta muslimiinta daciifka uu cuno waa in la mid noqoto uu oranjiri cunada afqar muslim fi baladikum uu cuno waa in inukuna cunadaas oo kale alla cuntaan buu oranjiray amma hantida baytul maalka ku jirta waxa uu tusay Umar ummadda in hantida ummaddu ay leedahay ummadda loogu khidmeeyo wallahi Umar bin Khattab maalmaha kamida isagoo shuuradii asxaabu Muhammad sida u dhax fadhiya ayuu madaxa intuu qabsaday buu sida u naqas baa ka soo baxay markaas la yiri maad bugtaa may ma buko ma waxbaad maqashay oo naga qarinaysaa may waxba ma maqlino waxa naga qarinayo iga naxiyay ma jirto haddaan naqaska ka soo baxay madaxaad qabsatay kulli murug baa ku haysay noo sheeg annagu dhahan kula wadaagne markaas uu law asara dabbatun fil iraqi la su'iltu anha lima la tuslih laha tariqa ya Umar faras ya dameer ya baqal iraq ku nool haday turoodaan waxaan ka baqayaa qiyaamaha in la igu qabto la weydiyo la igu yiraahdo ya Umar fardaha ya dameeruhu jidadka ay marayaan maxaad ugu hagaajin weyday bani aadamkii xuquuqdoodii intay gaarsiiyeen ayay ka fikirayaan dameerka iyo faraska iyo baqashu meeshay mari lahayd inay wadada u hagaajiyaan Allah ina fahamsiyo wadankan Faylan ayaan bari anakoo jamaaca tagnayo waanu fiirsaday baabuurkii yara waday u sameeyeen basaskii rukaabka waday u sameeyeen tareenkii waday u sameeyeen qofka baaskiilka waday u sameeyeen ka lugeynaya wada gaar ay u sameeyeen ka ayga wata meelaha rest area lagu nasto meel gaar ay u sameeyeen ay leeyihiin halka adigu fadhiiso wax ciidan oo ilaalinaya ma jirto nin walba nidaamka wadanka loo dajiyay ee televisionka loogu sheegay ayuu ku dhaqmayaa oo ilaalinaya noloshii adduunyada saas ay ku hagaajisteen innakii muslimka ahna maanta xaalkeena wad arkaysaa marka walaalayaal siirada waxaan u akhrinayaa ma waan gaari karnaa ma lihin waan ogahay zamankan joogno waa zaman adag weeyaan sidaan meesha ku soo galaaba iska adagba laakiin waxaan leenahay halkaan u socono waa halka weeyaan ummadeennan inaan u adeegna loo baahan yahay oo noqono mas'uuliin wa ilaa hadii kale mas'uul kasti qiyaamaha isagoo labada adin ka xidhan ba maka qiyaama la keeni ama dadku talada u hayaba xadhiga ka furiyo oran doona ilaahu si fiican buu noogu adeegay jannada gali ama iyaka oran doona may ilaahu kan xaqayagi kama heline ilaahu noo qabay oran doonaan